cudurka loo yaqaan COVID-19 waa nooc cusub oo fayraska ka mid ah wuxuuna u faafaa qof ilaa qof. Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo caalamka, wadamo badan ayaa laga helay. Asalkiisuna waxa uu ka yimid dalka Shiinaha. Sida ay sheegeen khubarada sayniska oo weli baaraya safmarkan, waxaa haatan laga yaabaa inuu dhowr nooc u siqo la iskuna qaadsiiyo. waxaana ka mid ah dheecaanka neefsashada ee qofka cudurka qaba ka baxo marka uu qufaco ama hindhiso. dadka oo isku meel wada joogo oo isku dhow wax ka yar ilaa 2 mitir. haddii aad taabatid shay ama meel fayraska leh kadibna aad ku sii taabatid afkaaga, sankaaga ama indhahaaga. dadka laga helay waxay soo sheegeen astaamo ay ka mid yihiin muddo kooban oo 2 maalmood ah ama muddo dheer oo dhan 14 maalmood kadib markaa fayrasku ku dhacay, qandho, qufac iyo neefta oo ku adkaata. haddii aad leedahay astaamahan ama aad xiriir dhow la yeelatid qof qaba, waa inaad isbaartid. saraakiisha daryeelka waxay la talinayaan shakhsiyaadka khatarta ugu jiro sida waayeelada, haweenka uurka leh, kuwa qaba wadne xanuunka, cilada sanbabaha iyo sokorta, maadaama uu difaaca jirka ku yar yahay inay qaadaan jiradan daran. haddaba waxaa habboon isla markaana dhammaan dadka laga doonayaa inay xirtaan oo wejiga dabooshaan inta ay ku sugan yihiin gudaha ama bannaanka goobaha ay dadweynaha iskugu yimaadaan. ciddii su'aalo qabto fadlan la tasha dhakhtarkaaga.